wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya Saadaad Maxamed Nuur ayaa maanta boqolaal shacab ah kula oogay salaada ciida magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Baay. wasiir Xasan Eelay ayaa salaada kadib la wadaagay hambaliyada munaasabadda ciida dadweynaha ku dhaqan magaaladaasi isagoo u rajeeyay nabad. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وانتم بخير إذا أنك فرح السجناء إني ندق Buur-Hakaba إدات شيء صلاة دي دك اللي أوجنا ورطة الحمد لله رب العالمين إلهي غفور رحيم كهاي صون كان إنك دماي سند بدأ إلهي إنك ما هنجان إن شاء الله تعالى ونشلي قلبت يبورها ديرني إني دتك هلك أو غرابة ده أو كنول كونفور قلبت صلاتنا اللي إيدنا أنا كلي ولي فضايا الدنيا يعني عيد مبارك كل عام وأنتم بخير عيد مبارك لنا طبعا وي فضايا إني أنا عيد مبارك جودهان ومد الإسلام كجارهان ومد الصومالي جارهان رير كونفور قلبت أبور أن الروجا بيدوا بردالة كسديرة نحضر براوة إيميل ولبه أو يكنولين أنا عيد مبارك إلهي ذي شيء يدو يدين ولا رجينا ونوسق وقروح بدنا sidoo kale waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta uu la ciido shacabka ku dhaqan magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Baay. Mukhtaar Cabdi Ciise Simcad warbaahinta qaranka Buur-Hakaba.